mushaarkii maxaa lahaa ii sheeg mushaarkiisa xukuumadda mushaarkeedoo dhan baa la siiyey ra'iisul wasaaraha lacag 5 milyan la eg baa hal mar waxaa loo geeyey maaragtay Puntland waa roobab baa da'ay magaalada afgooyaa biyo ku soo fataheen farmaajo xitaa magaalada laga keeno qudaarta villada uu ku cuno wuu ka xishooday inuu dhaho waan ka xumahay dhibkii ka dhacay iyo shacabkii soo barakacay iyo wabigii soo fatahay xataa inuu u tacsiyeeyo garan waayo yaa maanta idhihi karo digil iyo mirifla ah farmaajo halkaas wanaagu deegaankeena ka qabtay marka laga reebo munaafiqiinta qabiilka u gaalowday anaa hadda dhahayo ninka ilaahay oga hor imaanaya ee xaqiiqda ka gambanaya ee ama kursi raadsanaya ama kursi difaacayo adeer waa hore ilaahay ka furatay waa hore ilaahay iyo rasuulka wadadiisa ka leexatay waa hore waya daacadi ilaahay iyo run sheega iyo xaq sheega waxa ka jeclaysata qabiilkaaga inaad raali geliso ama kursi hebel ku fadhiyo inaad raali geliso أنا كوا أكتيد قالي كي نطا دين شيئا أكتيد مسلم كماها مسلم ياوي مسلم كوا من سلم المسلمون من لسانه ويده وأنك الرنطة أنا كجنبرين ولو كان مرة أبها هو يدا أدرك هذي جلسوا وبهذا حق هذا ليس لكن قبيل باسيد فنو دفاعه قبيل باسي واضح ودفاعه كرسيين هيستان دفاعه ضد بان أدرى هذا الإسلام لماذا أفكار مجرته إسلام كل رقم بوبا هي إسلامكو أبتر معهن إسلام نملا مسلم نملا أبتر معهن كل رقم بوباهن تاي بين تولى فقادة وباهن تاي حرام تولى سكيل عليه وباهن تاي ومدة دباتة كجرته on dhiigooda laga macaasin ba u baahan tahay islaamnimada dhaqan bay rabtaa islaamnimada dhaqan bay rabtaa adeerayaal asla dardaaranna marka anu muslim waxaan u aqaanaa ninka xaqa islaamka iska ilaaliyo xaaraanta banaanka ka maro kursi aan si qaldan ku raadin qabiil aan si qaldan u difaacin reer baan ka dhashay ugu laan dheeraysan digidii mirflaadii la dhaw aan cidna ab iyo israana ka bariyay